meel kastoo ay joogaan waxaan u mahadnaqayaa dhammaan madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo taageerayaasha xisbiga wadani muddaan ka maqnaa waddanka heesaa kuma wanaagsani laakiin berigii hore hees baa jiri jirtay la yidhaahdo dhagaalmo wax yaabla igu soo dhacaya intii aan maqnaa dhacdooyinka dhacay way badnaayeen laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa in yaroo fara ku tirisa waa ka mid ah hooyooyinkii iyo umulihii lagu laayey dhulkoodii ee iyagana la xidhxidhay oo eehintooda iyo baroortooda qof walba reer somaliland guda iyo dibadba uu gaadhay codkooda waxaa ka mid ah muwaadiniin reer somaliland ah oo dan yara oo maxkamadda ku xukuntay 700 kun lacag ku dhow midkiiba waxaa ka mid ah saxaafadda oo sidii xoolaha waa ka mid ah saxaafaddii madaxa bannaanayd oo sida xoolaha loo harraasayo oo jeelka laga buuxinayo waxaa ugu dambeeyey kuwii la dilay ee jirdilka loo geystay tafatirihii bulsho iyo cabdimaalig coldoon oo burco laga soo afduubay walaalayaal somaliland waa dalkeennii waynu wada ilaashanaynaa doodaa ka socday somaliland maalmii dhaweyto doodda waxaa ka mid ahayd dooddii ay curiyeen brofesor samatar iyo brofesor cali khaliif galayd ee ahayd somaliland la wada leeyahay haddii la waayo somaliland ma sii jiraysa waxaynu doonaynay somaliland la ururiyo oo shacbigeeda la ururiyo oo wadajirkeeda la ururiyo laakiin waxaad mooddaa dhacdooyinka isdaba socda inay midba midka ayaa badan tahay waxuu sidoo kale jawaab ridaacilina ka bixiyey dhawaaq midaysan oo maalinimadkii shalay ka soo baxay xisbiyada kale dhigooda ee u cidiya kulmiye oo ku aadanaa dhanka doorashada isagoona tilmaamay in weli xisbigoodu diyaar u yahay in wadahadal lagu dhammeeyo khilaafka xilligan ka taagan qarsoomidda doorashada isagoona ku baaqay in dhankooda ay ka go'antay in doorasho ay ka qarsoonto somaliland shalayto xukuumaddii somaliland iyo labadii xisbi ee kulmiye wicid waxay soo saareen waxay ku sheegeen go'aan muhaynkaas waxaynu ku micnayn karnaayoo keliya inuu ahaa shahaadaddii dhimashada ama death certificate-kii hannaankii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka somalilan ilaahay haynooga sahlo somalilandna way galaafan kartaa arrintaas waxaannu u sheegaynaa tallaabada ay qaadeen inaanay ahayn mid u danaynaysa hannaanka dimuqraadiyadda somalilan iyo in doorashooyin dalka ka qabsoomaan maaha tallaabo u danaynaysa midnimada shacbiga iyo wadajirkooda hase yeeshee waa tallaabo dildillaac ku keeni karta bulshada somalilan waxaan kaloo sheegaynaa tallaabadaa ay qaadeen inaanay sinaba uga suurtagal ahayn somalilan in laba xisbi ay yidhahaan somalilan annagaanu sidaa doonno ka yeelayna intay gaar u tashadaan farriintaan u dirayo shacbiga reer somalilan iyo beesha caalamku waxa weeye go'aanka magacay doonaan baa u bixiyaan inaannu deedafaynay oo annaan oggolayn oo aannu diidnay xisbi ahaan laba waxaa xisbiga waddani beesha caalamka iyo shacbigaba u sheegayaa siduu horeba ugu sheegay inuu diyaar u yahay doorashooyin wakhtigoodii ku qabsooma waxaa kaloo aan u sheegayaa beesha caalamka iyo shacbiga reer somalilandba inaanay sinaba u suurtogelaynin in keligii xisbi uu doorasho somaliland ka qabsado waxaan leennahay labadaa xisbi iyo xukuumaddana taladii waa la ambateen annaguna waxaannu diyaar u nahay miiskii wadahadalka sidaannu awalba diyaar ugu ahayn talada halkeedii ha lagu soo celiyo haddii la doonayo doorashooyinku inay wakhtigoodii ku qabsoomaan walaalayaal waxaa shacbiga reer somaliland ugu baaqaya dee xukuumaddii aynu doorannay waynu aragnaa labadii xisbina waynu aragnaa inay ambadeenna waynu aragnaa aadan carab baa tilmaamay dadka ambado oo wuxuu yidhi nin ambaday halkuu aaday way ula ekaanaatay anigoo arkaayaan waddada erigoo maray waxaan leeyahay labadaa xisbiya xukuumaddu waddadii erigoy mareen
somaliland waa la wada leeyahay taladeeda waa la wada leeyahay cid gaar u tashan kartaa ma jirto go'aankooda marnaba kuma xusin caqabadihii doorashada hor taagnaa iyo sida loo qaadayo waxaa su'aal qura isweydiin leh waxay yidhaahdeen komishanka ha joogo ilaa 29 Noofambar waxay yidhaahdeen August baan soo jeedinay in la magacaabo komishankii cusbaa maxaa u diidayay in May la magacaabo maxaa u diidayay in June la magacaabo sharciga ka ogolaaday kan miyuu diidan yahay haddii la doonayo doorasho talaha la isugu yimaado doorashadii diyaar baanu nahay shacbiga Soomaaliland waxaan ku dardaarmayaa maadaama aynu aragno de xukuumadii iyo taladeedii maadaama aynu aragno labadii xisbiye taladoodii midnimadeenu waa muhiim wada jirkeedu waa muhiim duruufaha ayna haystay inagu gadaaman waxaynu kaga bixi karaynaa midnimo Soomaaliland haddii wada hadli kari weydo oo xisaabtu wada hadli kari weydo Soomaaliya sida wada hadlaysaa